السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قليقة إيوه دمانتين من بدون ذات كجوكتان وانيقا برير بروق دنرسا قولانتي عن ونكسان مانتو وحانو هيا short video oo aan badneen laakiin maadaama maaragtay xaliye iyo gabdho aan ogahoo kale idinku tunteen maanta waxaan rabaa aniga inaan sida daacadii aan idinkala hadlo. barnaamijkeenana wuxuu noqon doonaa wiigiiba hal maalin ayaan kusoo tuuri doonaa. de adigana sheer garay like-tana maaragtay commentiga aan kaa arko. haddii kalena ordo xaliye iyo dadaan ogahay ka daba naageeyo bohol ha idinka ridaan. markaasina maaragtay idinkana iyagana maaragtay haddaneystaan oo ha idin yiraahdaan oo kaalay mi idinka awalba idin shumi lahayn. okay, maanta waxaan kuu hayaa gabarey noloshaada haddaa u baahan tahay nolol qurux badan inaad ku noolaatid ama ulaad hayso ama ha haysanin ama guurkaaga ha kuu cusboonaado ama yuusan kuu cusboonaanin. hal shay ilan maaragtay shorku wuu nagu yaryahe. hal shay haddaad ninkaaga aad ka ilaalisid 100% waxaan hubaa in ninkaas gabar kastaa oo xitaa dhexda usoo xirataa inaysan kaa qaadi karinin. iska badaaba inuu asiga u kaa taga maahane. because you know why? halkan shay gabar ka tagtay unbaa samayn karto ee adiga gabadhi ka tagtay ma noqon lahayd, ma noqon kartaa. micnaha halka shay maxay tahay? adduunyada ilaahay ruuxa bini aadanka waxa ugu horeeyo uu wax ku dareemayo ama wax uu ku arka waa indhihi. hadduu kaa soo horbaxo wuxuu arkaa muuqaal ahaantaadii ayuu arkaa. muuqaal ahaantaadii markuu arko dee waa rifrifan tahay, baati baa wadataa, madaxii waa ganagano. walaal macaa ninku ma rabiyo. ninku wuxuu rabiyaa gabar qurux badan. you know why? because banaanka markuu joogo misas iska siinayso isu soo nadiifiso walba gurigeeda haday joogtaba xitaa iska ganaganan lahaatay buu raadinaa. ninkii wuxuu raadinaa naagtii quruxda badneed uu shalay toole uu arkaya buu raadinaa. uu leeyahay oo maanta maxaa ka qaldamay, oo maanta markaan guursado meebi isdhigatayba. marka intuusan ku dhihin walaal macaan ninkaaga adiga quruxdaada tusi, isqurxi. tan kale haddaad adiga isqurxisid dee aday kuu fiican tahay inaad isqurxisid oo isnadiifisid. adigay kuu fiican tahay oo nafsadaada aad bartid. waayo xitaa haddaan lagu qabin waad isnuurinaysaa, waad iscarfinaysaa, waad isqurxinaysaa. jawi macaan nolol qurux badan ayaad qaadanaysaa. adduunyada waa 2 beri.